toddobaadii ugu dambeeyay oo degmada Cawdaq ay ka taagnayeen xiisado iyo xasarado siyaasadeed ayaa waxaa shalay iyo maanta ka kala dhacay barnaamijyo aad u waaweyn oo lagu taageerayo go'aanadii ka soo baxay shirkii ay u fadhiyeen maamulka culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca. barnaamijyadan oo soconaya maalintii labaad ayaa waxaa fagaarayaasha wadooyinka waaweyn ee degmada Cawdaq lagu arkay halkudhigyo iyo borar ay ku dhajiyeen gaadiidka oo markaas ay isticmaalayeen dibadbaxooda iyadoo sidoo kale dadka maanta barnaamijyada ay u badnaayeen haweenka xirta ah ee taageerayaasha maamulka culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca. qaar ka mid ah dibadbaxayaashii maanta ayaa ku soo bandhigay fagaarayaasha waaweyn geeraaro baraambaro qudbooyin kala gedisan oo ay kaga hadlayaan ujeedada barnaamijyadooda iyo sababta kaliftay inay dadkani dibadbaxaan. ugu soo baxnay oo calaamaha iyo caleemaha u soo qaadanay aanan joojinayn aanan deenayn dib iyo arayba hadda iyo hadda oo sheegaynaa ruux kasta meel alla meesha ku nool yahay annagu waxaanu nahay degmada Cawdaq iyo darasyadeeda inta isla xiriirta gobolada ay ka mid yihiin Matadaan Gurceel Dhuusamareeb Xeraal Cawdaq waxaanu nahay tijaayad siman heshiisna ka ah cadowgeeda una heshiisay nabadeeda dhammaan waxa way maanta ay sameeyeen barnaamij ay ku taageerayaan fakarkiisa iyo macnaha culimada culimadiinka oo Sunnah wal Jamaaca go'aamadii ay soo saareen annagu waxaanu ka mid ahay dadkii qabanqaabiyey barnaamijka waxaanu mar walba shaqeynaa garab taagannahay intii ka soo horjeeda calaamada waddanka ku wada iyo degmada waxaanu gacan ku siinaynaa maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaaca inaan isku mid ka noqono dibadbaxyadan shalay iyo maanta ka dhacay degmada Cawdaq ayaa waxa ay daba socdaan 8 bisha dibadbax ka dhacay magaalada Cawdaq oo looga soo horjeeday maamulka culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca kadib amarro ay soo saareen oo ku wajahna in xildhibaan ka socday dowladda federaalka markaarka Soomaaliya oo ku sugnaa degmada Cawdaq oo soo baxay magaalada waxaana taasi ay sababtay qulqulatooyin fara badan iyo waliba isfahan darro aad u ballaaran oo ka dhex dhalatay dhinacyada siyaasadda beelaha deegaanka guurtida iyo waxgaradka degmada Cawdaq iyo waliba maamulka culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca. waxaana iminka magaalada Cawdaq xaaladeeda u muuqataa mid ay ku hardamayaan dhinacyo iska soo horjeeda oo kala wata hadafyo siyaasadeed oo kala duwan iyadoo dhanka kalena wararka qaar ay sheegayaan in iminka degmada Cawdaq ku sugan yihiin xubno ka tirsan maamulka Somali Central State oo ah maamul goboleed la doonayay in laga hirgeliyo gudaha degmada Cawdaq halka wararka qaarna ay sheegayaan in aysan imaanin balse ay ku soo foolan yihiin in ay Cawdaq yimaadaan. muddo hadda laga joogo sanad iyo in ka badan ayaa maamulka culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca waxa ay mamnuuceen in maamul aan laga sameyn karin gudaha degmada Cawdaq ka dhan ah markaana ka soo horjeeda maamulka ayagoo ay gacanta ku hayaan diyaar garow iyo howlgalo military oo ay doonayaan maamulka culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca inay kaga hortagaan howlahaasi ayay iminka ka dhex wadaan gudaha degmada Cawdaq iyadoo sidoo kalena baabuurta dagaalka ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca lagu dhex arkayay goobihii maanta ay ka socdeen dibadbaxyadu sanadii 2008 ay ahayd maamulka culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca markii la wareegay inta badan gacan ku haynta gobolada dhexe oo iminka ayagu si toos ah ay gacanta ugu hayaan uga arrimiyaan waxaana halkan dheer kadib ay diyaar garow awoodad iyo siyaasiyadeed ba u galeen inaysan ogolaan doonin cid kastoo isku dayda inay ka feer abuurto kana dhex samayso maamulka dhan ah midka ayagu ay gacanta ku hayaan isla markaana ay kaga hortagi doonaan awood buuxda midaysan waxaana guud ahaanba xasilooni iyo nabad ay ka jirtaa deegaanada ay gacanta ku hayaan maamulka culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca gobolada dhexe inta ay ka arrimiyaan. mahad xasan diini Cawdaq.